كل مايكروفون وحده اسكب بدلايا but I don't know what's going on ugu deeqo walaashiis Aamin Cabdullaahi sidii loo siiyayna waxaan ballan qaadayaa inaad idinkaga soo hagarbaxayo gabdha kale iga soo horeeyna kursigan inta loogu deeqay oo waxaan aragnay oo sida rabnay aan ka helin walaalayaalow qofka looma siiyo hebel baa haysan jiray hebel baa ku jiray waxaad ku dadka ku dooratiin qofka idin soo hagarbixi doono oo sidaad wax ugu dhiibteen hawsheed u dhiibteen idinkugu soo gudbinayo waxaan rabaa inaad aamintiin codkayga maanta halkan waxaan rabaa inaan ka codsado inaad kuuriyaashiina igu aamintiin oo hawshaad ii dhiibteenna siday tan idinkaga soo baxo badan wuxuu u xil saaran yahay haweenka ilmaha dhalinyarada iyo dadka curyaamiinta intaas markii laga soo dhaafo dad waxaa jira iska dhibana ah oo tabar yar oo aanan awoodin nolol maalmeedkooda kursiga wuxuu qabaa funds fara badan uwezo funds uu qabaa women fund uu qabaa youth fund uu qabaa intaa waxay idin sheego hadda ka hor aragteen intaas oo dhan kursigaas qabaa intaasna in laga faa'iideysto raba haddaadan adiga dhex galin dawladda aad ku dhex jirto oo dadkii aad ka soo ballan qaaday inaad wax u soo qabato aadan codsigaaga geysanin oo aadan dadkii dhex galin oo codsanin waxaad u baahan tahay waxaad dadkii u qaban karta malaha I don't want to be dormant in li doorto on meel fariisto ma rabo dadkeena u shaqeeyaan raba halgan ayaan nahay codsigiina waxaan rabaa inaad isbedel ku doontaan uu ku leeyahay waa mid adigu anfici doona hadduu adigu anfici waayana qaraabada lagu anfaco qaraabada hadduu anfici waayana midka kugu dhaw fakeeyahaaga dhibanaha ah inuu anfaco marka waxaan rabaa maanta aniga kale doorto qof waxaan nahay kalkaalisa ah experience waxaan u leeyahay qaybta dumarka iyo qaybta waayeelada inta badan hadda dadkii wal harba loo batay nin meeshiisa taaganna ma laha dumarkana waa ku dhex jiray anaa ka koowa cudurro waxaa jiraan aan la sheegin cudurradaas oo isku furanka ah dumarka guryaha ku dhalay inta badan way dhiban yihiin ma haystaan kalkaaliso mase midwife fiican oo guriga uga dhalinayso maamooyinka waxaa jiraan dhuulas anaga dhahnaabad waxaa jiraan oo milisooyina guryaha tagaan gabdhaha markay caawiyaan caafimaadka sidii loo baarnaa loo firin lahaa gudaheeda aanan tababar fiican u lahayn gabadhi way dhashay dhiiggaa laga dhaqday guriga albaabiya loo saxiday ilmihiya dhiig laga dhaqay waa lagu kala yaacay marka gabdho noocaasaa jiraan oo fara badan foundation waxaan qabaa fistula foundation ah ayaan hadda bilaabay waxaan rabaa inaan gabdhaha uga faa'iideeyo walaalayaal qof walba oo garanayo oo aqaano gabar Soomaaliyeed ah hooyo Soomaaliyeed ah oo umushay gudi joogto kaadada aan reeban karin oo soo bixi karin codsigeeda diidan karin qofkii walaal ah oo garanayo inuu ila soo raadsado waxaan rabaa inaan dumarka uga faa'iideeyo qaybtaas mar walba fursadda waan qabnaa sanad walba way soo baxdaa laakiin lacagta waxay ku noqotaa dawladda jeebkeeda waayo wax u weydiinaayo malaha wax gabdhiina u soo baxaayo caawinaayo malaha waxaa kaloo rabaa yuuska badanaa waxaa la arkaa wiilal dhalinyaro ah jaamacadooyin soo dhameeyeen iska shaqo la'aana baagamuunda aad iska cunaya meelo iska tagtaagan bad haddii wax loo hagaajiyo shaqo abuur loo sameeyo nolol maalmeedkooda ku filnaan lahaa baan raadinaya idinkaan idin galabsanaya codsigiina kuurihiina iyo ku jira codkaas aan raadinayo marka waxaa idinka codsanayaa kuurayowgiina inaad iigu deeqdaan magaca Aamin Cabdullaahi waaye paatiga waa PNU madaxweynahayga waa Raila Odinga Azimio la Umoja waaye xisbigu ku taagan yahay isagana dhammaantiin waa mahadsantihiin gabana waa loo kala duwan yahay nin walba isaga u leh xaq laakiinse inaan ka hadlo aniga midkaan wato waa Nadiif Jaamac ninkii ila wado marka insha Allah nin walba iyo tabtiisa kuurayowgiina iyo codkiina u baahanahay haligu taakuleeyo waan idin salaamaya waa mahadsantihiin sida u soo baxdeen sida sharafta badan aad ii soo dhaweyseen walaalahay qaali waa tihiin insha Allah codkiina insha Allah igu